dalka Kenya dadka laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxay gaareen 184 ruux iyadoo maanta oo kaliya la xaqiijiyay 5 kiis oo cusub balse wasiirka caafimaadka dalkaasi oo ka warbixinaya akhbaartii ugu dambeysay ayaa sheegay in ilaa 12 ruux laga saaray isbitaalka kadib markii xaaladooda caafimaad soo ronaatay wasiirka caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagwe ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dadka u dhintay xanuunkan dalkaasi Kenya ay gaareen 7 ruux. An additional 4 persons have been discharged in the last 24 hours, having moved from positive to negative status. afar laatan saac la soo dhaafay waxa isbitaalka laga saaray 4 ruux oo xaaladooda caafimaad ay ka soo reynayso waxa ayna tani ka dhigan tahay wadarta guud ee dadka laga saaray isbitaalka 12 ruux. Tani waa akhbaar wanaagsan. Sidoo kale waxaan ka xunnahay in hal ruux aynu ku weynay magaalada Mombasa afar laatan saac la soo dhaafay. Ruuxaas ayaa si dhaqso ah u dhintay kadib markii goobta caafimaadka la geeyay waxa uu qabay xaalad kale oo caafimaad. Waxa ay tani ka dhigan tahay tirada dadka u dhintay caabuqa corona 7 ruux. But died and upon death during the postmortem is when they realized the person was also positive. So that is 7. It brings to 7 the number of people we consider having